dhammaan asxaabta la socota janalka qaraaxa tiyuub waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo waxyaabaha saake la hadalhayo gaar ahaan wargeysada waxay ka qorayaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Paul Pogba wakiilkiisa ayaa rajeynaya inuu u sheego Red Devils in ciyaaryahankan 100 milyan uu ku aadi karo kooxda Barcelona oo ay doondoonayso. Daily Star Sunday ayaa warkaasi warinaysa. Manchester United ayaa ku dhow inay 60 milyan ku soo qaadato Tottenham ciyaaryahankeeda xidiga lagu magacaabo Toby Alderweireld. Benfica ayaa la furtay wadahadallo Manchester United waxay doonaysaa Matthew Darmian oo 15 milyan lagu qiimeynayo. Chelsea ayaa 35 milyan ku soo qaadan karta ciyaaryahanka qadka dhexe ee Arsenal iyo xulka Welsh xidiga lagu magacaabo Aaron Ramsey oo 27 sano jir ah. Borussia Dortmund ayaa diiday 60 milyan oo laga soo gudbiyay ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee lagu magacaabo Christian Pulisic oo 19 sano jir ah kaas oo ay doondoonayaan Chelsea, Bayern Munich iyo kooxaha kale. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa aqbashay 4.45 milyan in Sporting Lisbon ay ka iibiyaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Lucas Perez. Inter Milan ayaa u diyaar ah in 35.6 milyan ay dhiibto si ay u soo qaadato ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Real Madrid xidiga lagu magacaabo Luka Modric, balse madaxweynaha kooxda kubadda cagta Madrid Florentino Perez ayaa la ogaa inuu bixiyay jawaab ahayd in kooxdiisa aysan ku qanacsaneen inay iibiso xidiga reer Croatia ee lagu magacaabo Luka Modric. Modric waa mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Madrid waxaana laga yaabaa xil ciyaareedyada soo socda inay kooxda ku faa'iido. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan. Fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.